Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuxuu ku rafaaday uu dhib badan kala kulmay la kulanka gacalisidiisa. Sababtoo ah waxay ku noolayd magaalo aad ugu fog magaaladiisa. Dhan kalena wuxuu ahaa hal-abuurahani arday uu jecel daran hayo. Si uu dhibkaani ugu baxo jiilka ka dambeeyana aysan ula kulmin dhibkan oo kale, wuxuu markii dambe hal abuuray ab cajiib ah oo wax weyn ka beddelay habnololeedkii caalamka. Midda kale hal-abuurahani kuma soo dhicin maskaxdiisa in uu noqon doono nin hodan ah oo ka mid ah ragga dunidani ugu taajirsan. Laakiin markii uu faafay fayruska koronaha oo rag badan oo xoolo haystay shiideen, asaga waxaa u suura gashay in uu gaaro guul mug leh oo aad u weyn. Sababtoo ah hal sano gudaheed ayuu ku hantiyey lacag qadarkeeda lagu qiyaasay $8 bilyan. Haddaba sidee hal-abuurahani ku ikhtiraacay abkan oo waxaanu hanti u suura geliyey in uu ka tacbo? Hal-abuurahani waxaa lagu magacaabaa Eric Yuan, wuxuuna 20 Febraayo 1970 ku dhashay magaalo yar oo ku taalla gudaha dalkiisa Shiinaha. Asigoo kuray ah oo dhiganaya fasalka 4aad ee dugsiga hoose ayuu koox macdan-qodayaal ah la shaqaysan jiray. Lacagta uu ka qaatana wuxuu isaga dabari jiray waxyaabaha yaryar ee naftiisa u baahan tahay. Haddaba inta uu Yuan dhiganayay jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda, taas uu ku biiri kulliyadeeda culuumta xisaabta, sanadkii 1987 ayaa waxaa haleelay jacayl daran. Wuxuuna jeclaaday gabar degan magaalo aad ugu fog magaaladii ay jaamacadda ku taallay. Wuxuuna Yuan jacaylkaasi ku kallifay in uu mar walba inantaasi qalbiga ku hayo, telefoonkana ka waco. Intaani kuma kaaftoomin, waa ku qanci waayey, waayo wuxuu mar walba jeclaa la kulankeeda weji ka weji, taas oo markii dambe ku qasabtay in marka ay jaamacaddu fasax tahay uu u safro magaaladii ay gabadhu deganayd. Wuxuuna safarkaani qaadanayay haddii uu Yuan raaco tareen muddo 10 saac oo kaamil ah. Laakiin haddii uu ku safro baska dadweynaha ama gaari yar, wuxuu ku qaadanayay safarkaani waqti badan oo ka saa'id ah kii tareenka. Wuxuuna socdaalkani Yuan kala kulmayay dhibaato badan oo ay ugu horreyso qarashka tirada badan iyo waqtiga qaaliga ah. Yuan ayaa ku riyoonayay in la helo agab awood u leh oo fududayn kara in uu gacalisidiisa si sahlan oo weji ka weji ah ula xiriiri karo, isla markaana u baajin karo lacagtaani faraha badan ee mar walba oo safar dheer galaba ka baxayso. Yuan ayaa kolkii dambe wuxuu ka qalin badashay jaamacaddii, wuxuuna ka qaatay shahaado baaj ah. Mar labaad ayuu haddana wuxuu ku biiray jaamacad kale oo lagu magacaabo Jaamacadda Macdanta iyo Tiknoolajiyadda ee Beijing. Wuxuuna jaamacaddaani ka qaatay shahaado master ah oo handasada dhulka ah. Yuan ayaa aad u jeclaa ninka hodanka ah ee lagu magacaabo Bill Gates, kaa oo markii Yuan masterkiisa soo gabagabeeyey imaaday oo barnaamijyo tababar iyo shirar ku qabtay dalka Shiinaha deriska la ah ee Jabbaan. Markii uu Yuan maqlay imaashaha Bill ee Jabbaan, inta uu boorsidiisa xirxirtay ayuu u safray caasimadda Jabbaan ee Tokyo. Wuxuuna halkaasi ugu qayb galay tababaradii iyo shirarkii uu qabanayay Bill Gates. Markii uu Yuan arkay Bill, wuxuu jeclaaday in uu asigoo kale noqdo, isla markaana caalamkani wax cusub ku soo kordhiyo sida uu Bill waxyaabo badan dunidani ugu soo kordhiyey oo kale. Laakiin markii uu Yuan dib ugu soo laabtay dalkiisa Shiinaha, waxaa u soo baxday in haddii uu sii joogo dalka uusan gaaraynin yoolkiisa. Sababtoo ah tiknoolajiyadda iyo horumarka waxaa hooyo u ah internetka. Mar haddii internetkii yaallay Shiinaha uu aad u liito, magaalooyinka qaarna aan laga helaynin, haddaba sidee ayaan horumarku gaari karaa ayuu isweydiiyey Yuan. Sidaas darteed wuxuu go'aan buuxa ku gaaray in uu aado dalka Mareykanka si uu u xaqiijiyo yoolkiisa. Haddaba Yuan ayaa safaaradda Mareykanka ee Beijing ka dalbaday dalkugalkii Mareykanka, laakiin waa loo diiday in la siiyo
fiisaha. 8 jeer ayuu Yuan safaaradda ka codsaday in ay siiso fiisaha, laakiin safaaraddii waa diiday. Ma garanayo sababta safaaradda Yuan fiisaha ugu hor istaagtay. Yuan ayaa dhankiisa diiday inuu isdhiibo oo riyadiisa ka haro. Markii 9aad ayuu safaaraddii ka codsaday in ay siiso fiisaha. Kolkaani safaaradda lama soo daahin aqbalaadii oo horay ayay Yuan ka siisay dalkugalkii. Haddaba halganka lagu sheegayo waa kan oo kale. Lama rabo in riyadaada ka harto oo hamigaaga 2 sac dhaafi waayo. Waa in aadan isdhiibin oo wasiiladii yoolkaada ku gaarsiin lahayd ku noqnoqotaa ilaa aad ka gaarto meeshii aad u socotay. Markii uu helay Yuan fiisaha, horay ayuu ka aaday dalka Mareykanka. dhanka kale Yuan kuma fiicneen afka Ingiriiska. Calaa kulli xaal wuxuu galay Mareykanka maadaama uu ahaa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga teknolojiyadda. Wuxuu shaqo mushaar fiican leh ka helay shirkadda Cisco oo ah shirkad soo saarta isla markaana sii iibisa oo ka gada shirkadaha waaweyn ee ganacsiga barnaamijyada fududeeya in si muuqaal ah loo wada sheekaysto. Haddaba Yuan muddo 10 sano ah ayuu shaqaale ahaa una shaqaynayay shirkaddaani. Wuxuuna inta uu shaqadaani ku jiray kororsaday cilmi iyo khibrad badan. Wuxuu bartay macaamiil tiro badan. Wuxuu kaloo in badan wax ka ogaaday baahida hadda iyo midda mustaqbalka imaan doonto ee dhanka teknolojiyadda. Waxaana markii dambe Yuan dadaal iyo juhdi badan kadib u suura galay in uu ku fariisto kursiga 2aad ee shirkadda. Haddaba inta uu ku fadhiyay kursiga madaxtinimada ee shirkadda, waxaa caalamkii si xawli ah ugu faafay moobilka caqliga badan ee lagu magacaabo smartphone. Yuan ayaa dib u xasuustay dhibaatadii xiriir xumada ahayd ee ku dhacday xilligii uu gacalisidiisii la hasaawi jiray ee uu safarka dheer u gali jiray. waayo wuxuu Yuan xilligaasi aad u daneynayay in uu jaceylkiisa weji ka weji u wada sheekaystaan. laakiin ma jirin xilligaasi aalado iyo softweero hawshaani fududeyn karayay. laakiin hadda waxaa la helay aaladii oo ah moobilka caqliga badan ee smartphone. waxaa loo baahan yahay abkii hawsha inta soo hartay dhammaystiri lahaa. sidaas darteed Yuan wuxuu hindise lagu sameynayo ab fududeyn kara in bulshada si foolka fool ah u sheekaysato ayadoo adeegsanaysa telefoonka smartiga ah ula tagay madaxdii shirkadda ee ka sarreysay. laakiin nasiib darro wuxuu Yuan kala kulmay madaxdii ka sarreysay jaas iyo quursi. waxayna ku dhaheen fikraddaani halkaani kama shaqaynayso ee ula tag shirkadaha waaweyn. ayagu hadalkaani dhabka ma ahayn ee jaas ayuu ka ahaa. wixii xilligaasi ka dambeeyay Yuan wuxuu nacay shaqadiisa, waxaana gebi ahaanba ka tagay dareenkii shaqo jaceylka. subaxii asigoo cagaha dhul ku jiidaya ayuu shaqada soo galaa. xaaladda marka ay halkaani marayso, Yuan wuxuu go'aansaday inuu iska casilo madaxtinimada shirkadda isla markaana uu samaysto shirkad asaga gaar u ah. haddaba Yuan wuxuu isaga tagay shaqo uu ku haystay mansab iyo mushaar sare. wuxuuna sanadkii 2013 bilaabay abkii uu sameeyay 2011 in uu ku dhiirigeliyo bulshada in ay adeegsato ayadoo aan laga rabin wax qarash ah. Yuan ayaa u tagayay shirkadaha waaweyn wuxuuna ka codsanayay in ay isticmaalaan abkiisa cusub ee Zoom-ka. wuxuuna abkaani ku socday ilaa la soo gaaray sanadkii 2019 si tartiib ah, mana soo xareynin lacag tiro badan. laakiin markii la soo gaaray dhammaadkii 2019 dunida idil waxaa ka dhacay isbeddel weyn. waayo waxaa soo shacbaxay fayruska khatarta ah ee lagu magacaabo koronaha, kaa oo habnololeedkii aadanaha wax badan ka beddelay, isla markaana sanad gudihii ku dilay malaayiin qof. dowladihiina ku qasbay in ay shacabkooda ku soo rogaan bandow iyo xayiraad aan la ogeyn goorta ay dhammaan doonto. waxaa albaabada lisugu dhuftay goobihii waxbarashada sida iskuullada iyo jaamacadaha. waxaa la diiday safaradii. waddan walba wuxuu xirtay dhammaan xuduudihiisa. haddaba waxaa gebi ahaanba istaagay noloshii caalamka idil oo waxay dunidii gashay xaalad murugo ah. sharikado badan ayaa shiiday, halka qaar kale xaaladda ka faa'iidaysteen oo kor u soo kaceen. maadaama xaalka dunida sidan uu noqday oo isu socodkii adkaaday, waxay bulshadu u baahatay qof xaaladdaani qallafsan ka saaro.
waxaana xaaladdaani cakiran ka faa'iidaystay ninkaani Eric Yuan lagu magacaabo kaa oo muddo 10 sano ah sugayay fursad noocan oo kale ah. dabcan waxaa fursadaha ka faa'iidaysta qofka mar walba diyaarsan. haddii ay wax kala daadsan yihiin fursadaha kama macaashi kartid. haddaba isku day in aad mar walba diyaar ahaato si aad ugu faa'iidaysato fursadaha dhawaaqaya. inta badan fursadaha way isqariyaan waxaana dareema qofkii barbaara oo keliya. haddaba dadweynihii caalamka waxay bilaabeen inay adeegsadaan abkii Zoom-ka kaa oo Yuan farsameeyay sanadkii 2011 sidaan hore u sheegayba. waxaa abkan Zoom-ka isticmaalay goobihii waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha kuwaa oo casharadooda iyo muxaadarooyinkooda ku bixiyay qaab online ah ayagoo ka faa'iidaysanaya abkan Zoom-ka. sidoo kale wuxuu adeega abkan Zoom-ka u sii gudbay maxkamadihii, hay-adihii dawliga ahaa iyo shaqaalaha dawladda kuwaa oo shirar badan ku qabsaday. sanad gudihii ayuu abkani si xawli ah kor ugu kacay wuxuuna soo xareeyay lacag balaayiin dollar ah. Yuan waxa uu suura gashay inuu si degdeg ah ugu biiro liiska ragga hodanka ah ee dunidani ku nool, waxayna hantidiisa kor u dhaaftay $8 bilyan. mar uu ka hadlay Yuan safarka guushiisa wuxuu dhahay bilowga safarka waa mid aad u adag oo dhib badan, laakiin ha isdhiibin wad shaqadaada. waxaa hubaal ah in guusha macaankeeda aad maalin ku raaxayso doonto. hadda bilow waxa aad qorshaysatay, hana cabsanin. iskuna day in aad ka dusto xuduudaha wahmiga ah ee dadka cabsi geliya. waxa aad moodo wax adag oo aan la gaari karin oo mustaxiil ah maalin ayay noqon doonaan wax aad soo qabatay oo agtaada caadi ka ah.